الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامت أكدب وحيابها ما أنت تاجن أما مواضيع ما أنت تاجن هي مشكلات كتاجن وحكم إذا إن لقبي المسؤولية إذا النبي محمد هذا الكيسي تاجن عليه الصلاة والسلام أوليه كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. قف والبايد كم يدي مسؤول وحنا لو يدين دونا مسؤولياتي إلهي أبي ولا ويدين دونا أي هذا نوع حجرين إنه آذو فضيت سنة إنه مسؤوليات لأنه جبها هي إنه أتكينه. مثال وحنا سوق هذا إنه متكم إذا صدح ذي قرنية النبي محمد أدعي عليه الصلاة والسلام أو تسكيي أو أماني nin xilligan noolaa oo lagu tilmaamay inuu ahaa marka la eego dhaqanka iyo afcaasha iyo cadaaladda iyo sugnaanta iyo thabaat ala diin marka la eego ninkaas waxa lagu tilmaamay inuu ahaa al-khalifa al-khamis nin shabaha Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali iyo lamida buu ahaa oo shabaha oo iyaga loogu magac daray haduu khaliif khamis hijri lahaa khamis al-khulafa buu noqon lahaa waa Umar ibn Abdul Aziz al-Amawi. عمر بن عبد العزيز sidoo u dareemay mas'uuliyadka waxa lagu yaqaanay mesela tusaalahan wuxuu yiri Umar anoo yar yaa waxaan dareemay xilka iga saaran inaan wax barto xilka iga saaran inaan hamiyo mas'uuliyadda iga saaran inaan dareenkayga iyo shucuurkayga ummadda muslimka kula noolaadon wax qabto markaas wuxuu yiri Umar inna li nafsun tawaqa waxaan leeyahay naf aad higsi u leh oo ididiila iyo rajale oo mar walba doonaysa inay ahdaaf xaqiijiso oo mar walba doonaysa mas'uuliyad inay qabato oo mar walba dareemaysa mas'uuliyadda ka saaran Ilaahay horti ummadda ay la nooshahay dadka ay ku dhex jirto. Umar wuxuu yiri waxaan ku fikiray inaana wax qaban karin ilaa aan noqdo horta nin caalima wuxuu yiri waxaan bilaabay shariicada inaan barto dabeedna waxaan ka gaaray inaan noqdo mufti adabka iyo luqada tafsiirka iyo ahkaamta shariicada islaamka loola noqdo waxaan ku fikiray anigoo agoona oon dirham iyo diinaar haysanin ayaa waxaan ku fikiray oon isiri si aad uga mid noqoto dadka mas'uuliyadka qaban kara si aad uga mid noqoto xawzada ama dadka ku jira bani umayya silkiga maxaan ku dhahdaa siyaasiga maanta waxa loo yaqaan silki diblomaasi waa inaad gursataa gabadha boqorka dadku aad bay ila yaabeen laakiin ilaahay wuu ii xaqiijiyay si aan mas'uuliyadayda ugu gaaro inaan Faaduma bintu Abdi Malik guursado maalintaas waxa uu Umar waxaan ku fikiray inta dabadeed magaaladii Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ee Madiina ahayd oo aan arkay iyadoo taaddi iyo dulmi iyo gabood falle ay ka jiraan inaan cadaaladda ku soo leexiyo sidii nabigu u xukumay mar labaad xukunkeeda ku soo celiyo ilaahay way igu guuleeyay anoo dareemaya mas'uuliyadii isaarnayd ayaa waxaan u galay tartan inaan magaalada Madiina waali ka noqdo waali baan ka noqday cadaalad wanaagsan baan ku soo celiyay 68 hijrada islaamku markay maraysay baa Umar loo doortay waxaana laga casilay 93 sida la sheego waaligii uu ka ahaa magaalada Madiina. Umar waxa uu yiri waxaan arkayoon ku hamiyay in cadaaladda Madiina ka jirta ay caalamul islaami aysan waxba u qabanayn mas'uuliyadkaygana ay ka mid tahay wali inaan dadaalo si aan caalamka islaamka oo dhan gacanta ugu dhigo waan dadaalay waxaan gacanta ku dhigay buuri khilaafada islaamka dhamaanteed. Umar ibn Abdul Aziz markuu ku dhigay gacanta khilaafadii islaamka waxa uu celiyay madaalimtii oo dhan mas'uuliyadiisa waxaad ka dareemaysaa xaaskiisiiba u yeeray wuxuu ku yiri gabadh yahay khaliifku qabo gabadh yahay khaliifkii iyo boqorku dhalay gabadh yahay afarta khulafada walaalaha la waxaan ka rabaa inaad maanta ama aniga ay doorato ama quruxda iyo lacagta iyo dhaqaalaha ka soo galay bangiga islaamka ama baytimaal muslimiin aad dooratay ku dhif Faaduma bintu Abdi Malik waxa tiri Umar wadaan ku dooranayaa maxaan sameeyaa wuxuu yiri ilaa dharkaad ku aroos gashay ee laga soo qaaday hantidiisa bangiga muslimiinta ama baytimaal muslimiin iyo jamiic ma tamtalikuhu wa jamiic ma amlikuhu ila aanu celino dadka muslimiinta xuquuqdooda reer bani umayya waxaan rabaa waxay qaateen oo dhan inaan ka soo celiye anigii adigu ma wada joogi karno. Faadima bintu Abdi Malik waxa la sheegaa inay celisay dhammaan xoolo waxay mulkiyeysay inay baytimaal muslimiin ku celisay
taasoo uu dareemayay cumar in nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii khaybar dagaalka markuu galay loo keenay nin saxaabiya sida uu Tirmidhi warinayo oo xadiid xasan oo saxiixa uu ku warinayo wuxuu yiri waxa loo keenay nin shahiiday waxa lagu rasuulka ilaahu ku tuko waxa uu ku tukan mahaya anigu idinku ku tukada waxa yiraahdeen waxaan ku nidhi rasuulka ilaahay yow lima waa la weydiiyay maxaad u diiday waxa uu wuxuu quluul ku sameeyay qaniimadii la helay dadka muslimiinta ay lahaayeen waxa yiraahdeen saxaabadu waxaan baadhnay alaabtiisii waxaan ka dhahelay shamla yar ama marayar oo dhowr diinaar joogto aad u raqiis ah baan ka helay haddii marka uu nabigu u diiday inuu ku tukado mayd dhintay oo shahiiday marayar oo dhowr dollar gaadhay intay leeg bay ya dareemaysaa dadka mas'uuliyiinta oo aan dareemaynin waajibaadka iyo waxyaabaha iyaga saaran iyo xilka ummadda ka saaran oo laga yaabo inaysan u aaba yeelin halkeed maal ka qaadateen halkeed samaalkan ku celiseen mas'uuliyadiinu maxay ahayd aan dareemi karin nabi maxamed wuxuu tilmaamay yiri sayati zamanun ala an-nas hadithki bukhari kitab al-buyu' waxa uu ku tilmaamay saxiixaha sayati zamanun ala an-nas dadka waxa soo mari doona zaman iyagoo muslimiina aanu u aaba yeelaynin qofku xaquu xoolahan ka qaatay xaqay ka soo galeen xaquu ku bixiyay qiyaamadana waan ognahay ilaa lagu weydiiyo maalkaagi meeshaad ka kasbatay iyo meesha aad ku bixisay meesha aad taagan tahay inaad ka dhaqaaqaynin oo aad ciqaabnaanayso waan ognahay taana waan aragnaa axaadiis iyo adilada saxiixa ku soo aroortay Umar ibn Abdul Aziz uu taa u xaqiijiyo anoo hadalka soo koobaya maqdacan koobana kilibka waxaan ku koobi lahayn oo oran lahayn miyaanu mas'uuliyad dareemin Umar markuu yiri shantii agoon ah muslimiina ba qof khaadimaha u shaqeeya baytimaal muslimiin baan ka bixin markuu yiri qof kasto in dhala hal shaqaale baan u sameeyno gaar ah oo isaga u shaqeeya markuu yiri laba qof oo kasto laxaadla oo lugaha iyo haday ka laxaadla yihiin gacmaha hal shaqaale iyo hal khaadim baan u sameeyn waxa dareemi kartaa Umar ibn Abdul Aziz mahanta markuu qabtay waxyaabaha uu qabtay mas'uuliyadka ka dareemay waxa kamid ahaa qaadi Abu Bakr ibn Hazm qaadigii Madiinaad wuxuu u qoray ee waaliga isaga u ahaa xilligii khilaafadiisa waa ninkii warqadii u horeysay u qoray ee ku yiri اجمع لنا ما صح من عندك من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية صارن باوحو كبقى عمر إن يضيعنتها حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام القاضي أبو بكر بن حزم با مركا أحاديث في أدي أهر رئيس سيدو بخاري تحقيقين أيو شيغيو يا قرية وصاء محانكو دهدايي أيها سودة جيي أحاديث أغو صحيح حسن النبي كسرنات عليه الصلاة والسلام ما دام الله دافع حلقي مخافة اللي قبي in xadiidka iyo quraanku ay isdhex galaan oo dadka u kala soocmeen oo quraankii la xafiday oo quraankii la qoray oo quraankii maxaan ku dhahdaaye uu kitaab ku qoran yahay mushaf Abu Bakar qaadigii looran jiray Ibn Hazm wuxuu Umar u soo qoray xadiisi saxiix ay talaabada ninkii u horeeyay amar ku bixiyaan Umar ibn Abdul Aziz buha Umar ibn Abdul Aziz waxa la sheegay riwaayadka qaar in la sumeeyay markii la sumeeyayna waxa sumeeyay khaadimkiisi Umar ibn Abdul Aziz markuu sumeeyay ayuu soo qabtay markii la soo qabtay baa waxa loo sheegay oo lagu yiri waad sumaysan tahay ninka ku sumeeyay sunta cunada kuugu darayna waa ninka khaadimka wuxuu yiri war maxaad ii sumaysay ma naftaada ku qurxisay inaad disho maxaad ii sumaysay wuxuu reebani umaya waxa igu yiraahdeen qaar kamida umara u bani umaya bacdhum oo adiga aad ku dhibsaday cadaaladda wax ku maamulayso yaa waxay amreen buuri inaan ku iqtiyaalo sun kuugu dara raashinka iyagoo ii ballan qaaday 1,000 diinaar oo lacag ah iyo inay xoreynayaan labadaas ay ballan qaadeen buuri Umar wuxuu yiri ma intaas aad ii dishay markaas wuxuu yiri waan ku cafiyay adiguna xor baad Ilaahay wajiga u tahay 1,000 diinaarna anaaba ka bixina waa kuwan hooyo baytumaal muslimiin geebuuri Umar isagoo mas'uuliyadda Ilaahay uu saaray dareemaya iyo xilku inta uu leeg yahay Umar wuxuu cafiyay ninkii isaga dhigiisa xalaashaday dilay yaa maanta madaxweyne muslima iska daaye yaa khaadimaho maanta dukaan ka shaqeeyo oo ninkii sumeeya cafiyay maanta عفسكاسي هل كان مينو جوجا مسؤوليته هل كان مينو جارسي سنتهاي أنت إن لأج ما قبان كرنا مكوها مي كرنا إن الحديث النبي محمد حتى لبك مذا ضدك أن كعمل فلان نراهنه وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وحنسي إحسان إذن كعد سنة هنا مقطع محاكو هذا قصة مؤثر كي يكون جرتينات جارسي سوى لها لو ذاك توتشير جرايسه أمر ما طلب إحسانية وشكرا وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله